aniga runtii xusuus gaara bay ii tahay inaan maanta joogo gebagebo oo aan ka qayb galayo iyada oo degmo ah xafladeedii lagu daafurayay walqasheedii gebagebo oo yara oo aan iskuulna lahayn oo in culimada qaadiriyada ah iyo tuulo yaroo dhowr 2-3 dhisme ay ka dhisan tahay ayaan anigu horta 84 buurtanaan galay waxay u baahnayd in waqti dheer ka warrame badhasaabku hadda wuxuu yidhi taliyihii qaybta booliiska oo isla ahaantaana taliyihii CID-da waxaa lagu dilay maxaad war uga keeni weyday colkii halkan soo galay wuxuu warkaa u waayey deegaanka halkan degani cidda sidaa u warrantaba maaha taariikh halgameed bay leeyihiin hadday halkan waqooyi iyo gubankan iyo buurtan nageegir iyo miriye iyo eeriyadan degan yihiin iyo hadday eeriyada oogada burcad degan yihiin nidaamkoodu haantoodu markaana lingax adag bay lahayd linkaha adagana kii sanamtii u ahaa halkay daymaga rag badan oo halgamayaashii ugu qiimaha badnaabaa hal ayay lahayd cismaan nuur baa halkan fadhiya ninkii dheereynayay meeyay halkan dabadayda fadhiyay gacan qoorgaab baa halkan fadhiya guddoomiyihii qabanqaabadee gees baa fadhiya rag fara badan muuse maxamed baa ka mida roobla timir baa ka mida cismaan caydiid baa ka mida yacniga waana soo koobi karaynine xaafadan gaarkaa markaana taariikh halgameedkeedii ay ku suntanayd bay lahayd carabi ayaa ka mid ahoo maalmaha la ruxmo ee la baqo ee dhulka la qaban waayo odhan jiray jibaba imanaya iska jooga inta aan odhanaya maanta waxa weeye degmadan si fiican buu u asiibay madaxweyne axmed siilaayo waa la magacaabay qaybtii u horreeyey waa la sameeyey degmooyin badan oo in badan ka horreeyey baa intan laga qabtay aan laga qabanin 2 shay baa hadhay in qoladeenna degaankaabaa leh dowladna loogu qayshan maayo dowladina mas-uul ka noqon mayso degmada gebagebe ee muddada faraha badan la raadinayay inakaa laynaga rabaa degmada muuse askar soo maqli maayo geesna soo maqli maayo cismaan nuurna soo halkan ma fadhiyo awowgay in xaaji axmedna soo halkaa ma fadhiyo mustafa cabdi catar adeerkayna soo halkan ma fadhiyo waa intii qurba jooga meelahan imika inaga joogtay iyo inankaa dirta hadlayay cismaan abakor baa isna halkan fadhiya qoladaa waxaynu ka rabnaa arrintii gebagebo inteena isu hadhaysay halkan joogtaana waxaa la rabaa gebagebo inaynaan uun la taagnaanin dowladdu gebagebo maxay ka qabanaysaa iyo waxaynu gebagebo ka qabanaynaa waa inay meel cad taallaa degmadani meel wanaagsan bay ku taallaa meel xoolo dhaqatay ku taallaa meel dhulbeereed noqonaya bay ku taallaa meel istaraatiijig oo wasiirku waa ka idiin sheegaye dareenno badan iyo tuhun baa meelahan ku jira macdaneed horay u maraysaa laakiin waynu samaynaynaa degmadan waynu ognahay degaan badan bay degmadani leedahay degmadan salkeeda iyo dermadeeda waa la ballaadhinayaayoo waxaa laga dhigayaa mid dad gobihi degan yihiin oo degaan badan ahoo la wada leeyahay oo laga wada tashanayo oo hawsheedu ay halkaa marto shiina yahay iyo hadduu jarmal yahay waa la soo dhawaynayaa cid kasta oo halkan harumarin keenaysa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa degmadan inay maanta muujisay awalna ahayd xusbiga kulmiye dad halgameed mowqifkiinina aa maanta muujiseen anigu guddoomiye ku-xigeenka xusbigaan ahay degmadaan de ka mid ahay dee waan ku faanayaa in degmadaydii iyo degaankayga ay mowqifkan taagan yihiin qodobkan waxaan idin odhanayaa degmadeennana harumar bay u baahan tahay dowladda kulmiyaa samaysay annaka way naga go-an tahay degmadan harumarkeeda qaybta ugu badan inaan ka qaadano maanta oo aynu halkan joogno
degmadu dawaatii meeyarkina waa kii yidhi dayle degmada bilow baanu nahay bilowgana waanu kala qayb galaynaa anigoo musharaxa iyo gudoomiyaha xisbiga ka wakiilay iyo xisbiga guud ahaantii maanta horta waxaan bixinaynaa $10,000 oo